بسم الله الرحمن الرحيم ساعدة حدا أن جوجنه وصقدي دحى محن كنا هبين نمو وحن ربعا إن أمة عليه شعب كصومالية ملك استي جوجان runtii ku jiraan dabaaldeg ka soo bilaabatay guushii xalay lagu doortay inaan madaxweynaha dalka Soomaaliya noqdo guushaasna waan aaminsanahay inay tahay guul ay iska leeyihiin shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay tahay guul ka bilaabatay Soomaaliya midnimadeeda saan u sheegay xalay waxa weeye guul runtii la dagaalami doonto musuqmaasuqa waa guul ka shaqeyn doonto dawlad wanaag taasoo ku dhisan dawladda inay noqoto dawlad aamina cadaalad ka shaqeysa caawisana dadka saboolka ah waad ku mahadsantihiin dabaaldegiina iyo meel kasta soo baxdeen inkastoo la ii sheegay xoogaa dhibaato ah inay dhacday waxay maraysaa maalintii labaad waxaan rabaa waan idinka codsanayaa inaad u fahamtaan campaign-kii waa dhamaaday waxaa hadda loo gudbayaa xilli shaqo oo aan doonayo in dawladda iyo insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo shacabka Soomaaliyeed inay bilaabaan inay ka wada shaqeeyaan oo shacabku ay sii wadaan kalsoonida ay siinayso dawladdeeda laakiin dabaaldegii inuu dhamaaday oo la joojiyo wixii hadda ka dambeeya banaanbaxyadan iyo soo baxan maxaa yeelay campaign-kii waa dhamaaday waad guulaysateen wixii aad rabteen waa hesheen xildhibaanada sharafta leh waa idin maqleen dareenkiina waa qaateen wayna ku shaqeeyeen dareenkiina maxaa yeelay waxay doorteen cidda aad rabteen waxaan idinka codsanayaa oo aan waqtigan dambe u qabtay shirkan jaraa'id inaad walaalayaalow aad joojisaan isu soo baxa oo jidadka aad ka tagtaan oo guryihiina aad ku noqotaan oo howlihiina aad dib ugu noqotaan waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha abaaraha oo aad ogtihiin inay xoolihii iyo dadkii ay la'aanayaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudahaba oo awoodi kara inay ku tabarucaan walaalahooda baaba'aya oo xoolaha iyo xoolahooda iyo noloshooda iyo beerahoodii ay ka baaba'een waa inaan isu gurmano waa inaan isu naxariisano insha Allah waxaan rajeynayaa dadka waliba khaasatan qurbaha jooga inay ku soo tabarucaan hay'adda gargaarka abaaraha oo ay culimadu isu xilqaameen oo ay wadaan campaign-kaas ay ku aruurinayaan dhaqaalaha si dadka waalahooda ah oo baaba'san oo dhibaataysan ay wax ugu qabtaan ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan tacsi u diro Allah u naxariistay Janaan Cadda Muuse oo shalay ku geeriyooday magaalada Dubai Allah u naxariisto jannadiisa naxariistiisa Allah siiyo cayladiisa iyo qaraabadiisa iyo asxaabtiisana samir iimaan Allah ka siiyo habeen wanaagsan fadlantiin